halkani waa EBC News. Dawada ku soo dhawaada warka maanta. Taariikhdu waa 2 bisha June 2025. Qodobada wararka Soomaalidana waxaa kamid ah. Madaxweynaha Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa la kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga. Waa tahay dawadayaal. Dawasho wanaagsan warkaas oo kooban. madaxweynaha Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa booqasho ugu tegay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Mudane Raila Odinga. Hoyga uu ka degan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Madaxweynuhu waxa uu uga mahadnaqay Mudane Raila Odinga xiriirka dheer ee ay wada leeyihiin dowladda Somaliland iyo isaga ee soo jireenka ahaa. Waxa kale oo uu aad uga mahadnaqay sidii diiranayd ee adkayd ee uu mar walba u taageeri jiray qadiyadda Somaliland iyo goonistaaggeedaba. dhinaca kale waxay ka wada hadleen madaxweynaha sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka qotada dheer leh ee ka dhaxeeya Raila Odinga iyo Somaliland. Waxay kaloo ka wada hadleen fursadaha iskaashiga dhinacyada kala duwan leh ee ay yeelan karaan Kenya iyo Somaliland, isla markaana loo sii xoojin lahaa dhinacyada dhaqaalaha, isu socodka iyo horumarinta waxbarashada. ugu dambeyntiina madaxweynuhu waxa uu ugu mahadceliyay Raila Odinga soo dhaweynta sida diiran ah ee ugu soo dhaweeyay hoygiisa. dhinaca kale Raila Odinga waxa uu caan ku ahaa taageerada Somaliland, meel kastana waxa uu ka xusi jiray in Somaliland uu aqoonsanayo haddii uu xukunka dalka Kenya gacanta ku dhigo. hase ahaatee umay suurtagelin in uu madaxweyne ka noqdo Kenya.